waa sheekada geeridii walaalkii ka yaraa ciyaartooyga AC Milan Kaga Galaze. Muuqaalkan ku soo qaadan doonaa qaabka uu dhintay iyo sidoo uga sheekeeyay laacibka AC Milan dhimashada ama geerida ku timid walaalkiisa xilli hore. Waa dhaawac qoto dheer oo aan jirkeyga ku oolin balse aan ruuxa ka dareemayo. Walaalkeyga Levan wuxuu ahaa arday jaamacadeed oo da'da 20 jirada ah. Wuxuu la tacaalayay wadna xanuun uu qabay. maalmaha ka mid ah isagoo guriga ku soo laabtay wuxuu gacanta ku sitay dhalo dawo ah. 2 nin oo xiran dareyska booliska ayaa u yimid oo ku yiri maxaad sidataa madaroogo maandooriye hay'an soo raac. ma ahayn kuwa ammaanka kama tirsaneen booliska ee waxay ahaayeen mafia. 2 maalmood kadib markii la waayay kooxihii afduubka geystay waxay dalbadeen lacag madax furasho ah. waxaana inoo sheegeen in cidna aysan ogaan si qarsoodi ah ula macaamilay raggii afduubka geystay. waxaa laga yaabaa inaysan ahayn talaabo akhlaaq ahaan wanaagsan, laakiin marka ay cad jirka ka mid ah idinka haystaan suurtagal kuma aha inaad samaysid wax kale. waxaan ahaa nin si weyn looga yaqaan dalkayga. nasiib daro taa cagsigeeda ayaa dhacday. guud ahaan dhammaan TV-yada ayaa bilaabay inay ka hadlaan Levan oo la afduubtay. waqtigu waa uu socday, aniga waan quustay, kadib waan xanaaqay. haddana waxaan bilaabay oohin. taleefon ayaan la soo xiriiray, waxaana weydiisteen lacag. waxay yiraahdeen walaalkaaga waa soo furan karnaa ama furdaamin karnaa. lacag ayaanu siinay, laakiin mar kasta oo aan qof siina lacag qof kale ayaa kula imaanaya isla dalabkii oo kale. waxaan rabnaa madax furasho ama waan dilaynaa. waxaan ka dhintay gudaha qalbiga, mana awoodin inaan muujiyo. waxaan ku qasbanaaday in qof walba tuso karti adkaysi, laakiin waqti kadib waxaan bilaabay inaan jabo ama isdhiibo. heshiiska AC Milan aan la gala darteed waxaa inta badan ka maqnaa qoyskayga. waxaan ciyaaray kulamo anigoo ka fikiraya walaalkay. waxaan ku guulaystay koob, waxaana u hadiyadeeyay ama u hibeeyay walaalkii deeqadihii igu darnaa. waxay ahayd habeenkii saqbarka, waan seexan kari waayey anigoo habeen dhan soo jeed ku dhamaysta. waxaan dareemayaa waali iyo isku dhaxyaac anigoo raadinaya meel aan ku bogsan karo. wax walba waan samayn lahaa si aan walaalkay u arko mar kale. waxaan bixin lahaa qadar kastoo maaliyadeed. intaa dabadeed hal mar ayaa la waayay afduubayaashii muddo 5 sano ah ilaa maalinta laga soo gaarayo. way la soo xiriireen oo waxay ii sheegeen inay heleen walaalkay ama meydka walaalkay. daqiiqadahaas indhaha ayaa i baqtiyey. meydka Levan ayaa bishii February 2006 laga helay qabri ku yaala duleedka magaalada Tbilisi. waxaa lagu aqoonsaday keliya baaritaano aad wanaagsan oo FBI-da Mareykanka ay ku samaysay. waxaa la dilay dhowr toddobaad kadib markii la afduubtay. waxaan jeclaa kubadda cagta oo aan ciyaari lahaa sanado badan, laakiin waxaan dareemay wicitaan xoog leh oo dalkayga iyo inuu ii baahan yahay. waxaan doonayay inaan isku dayo inaan tirtiro waxyaabaha xun ee ka jira Georgia. waxaan dareemay inay ka badan tahay tani baahi ay noqon karto waajib. Kaga Galaze waa aabbe 3 caruur ah. ilmihiisa ugu horeeyay dhashay 2009 waxaa loogu magac daray Levan. 2017 Kaga Galaze waxaa noqday duqa caasimadda Georgia ee Tbilisi. saaxiibkiis Kaneri Kurtons waxa uu yiri Kaga Galaze waa qof aqli badan, nin soo maray waqtiyo adag, haddana wuxuu lahaa qalbi waasac ah. xidigan ayaa u soo ciyaaray Dynamo Tbilisi, Dynamo Kiev, AC Milan 2001 ilaa 2010 uu ciyaaray 194 kulan, 12 gool ayuu dhaliyay. 2010 ilaa 2012 January uu ciyaaray 53 kulan, 1 gool ayuu dhaliyay. isku darka wuxuu ciyaaray 409 kulan, ka uu dhaliyay 21 gool. xulka Georgia ayuu ciyaaray
qaybaheeda kala duwan 17 jirada 19 jirada 20 jirada waaweynka ayuu ciyaaray 83 kulan hal gool ayuu dhaliyay 2011 ayuu ka fariistay sheekadan ku soo qaadanay Kaka Gladze iyo dhimashadii walaalkiis ayay ahayd saaxiibayaal muuqaalkan gaarsiiya saaxiibadiina kale mahadsanidin